wafdi wasiira oo ka socda dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlo shaqo ku tagay deegaano badan oo ka tirsan bariga gobolka Mudug sida Bilqalooc, Bandar Sheekh, Afbarwaaqo iyo Qorweyn oo ka tirsan deegaanada gobolka Mudug halkaas oo ay ugu kuurgalayeen xaaladda nololeed ee bulshada ku nool deegaanadaasi. wafdiga wasiirada ayaa waxa hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Galmudug Mursal Cabdi Aadan isagoo kormeer ku tagay xarumaha waxbarashada ee ku yaala deegaanadaasi isagoo warbixino kala duwan ka dhageystay baxda waxbarashada deegaanada uu tagay wuxuuna ugu dambeyntii uu sheegay in maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan sidii loo kobcin lahaa waxbarashada deegaanadaasi. sida sharafta leh aad noogu sheegteen deegaanka baahiyaha ka jira oo ugu horeeyaan arimaha bulshada ka dawladda ahaan waxaan dadaal badan ku bixinaynaa oo aan 24 saac u taaganahay oo ay qayb ka tahay safarka aan masaafada dheer aan kugu soo marnay inaan xaaladaha baahiyaha deegaanka wax ka qabano. runtii way dhici kartaa inaan soo daahnay laakiin waxaan rajayn doonaa safarka inuu soo yahay safarkii ugu horeeyay wasiirada ku yimaadaan wasiiro badan ay deegaanka ka wasaaradda waxbarashada ahaan waxaan rajayn doonaa inaan ka hirgelino iskuul deegaanka uu leeyahay oo wasaaradda waxbarashadu ay dhisi doonto haddii ilaahay in xiliyada soo socda oo runtii baahida ka jirto oo aad horeyna ugu soo gudbiseen dawladda ugu soo gudbiseen haddana aad ka dhawaajiseen ay qayb ka tahay. sidoo kale wasaaradaha arrimaha bulshada ay ugu horeeyaan wasaaradda caafimaadka iyagana waxaan rajayn doonaa. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Mahad Caabi Ciise ayaa dhagax dhigay MCH-ka Qorweyn kaasi oo baahi weyn ay u qabeen shacabka deegaanadaasi. runtii waxaan ka mahad celinaa sida quruxda badan oo noo soo dhaweyseen dadka deegaanku ay noo soo dhaweeyeen annaguna waxaan rajaynaa insha Allah taala inta aan la joognay baahiyii aan halkaan aan ka qornay maanta waxaan joognaa xaruntii caafimaadka halkaan nasiib daro way hadda ma shaqeynayso laakiin way ay shaqeynaysaa 5 bilood ka hor. waxaan rajaynaa saaxiibadii hay'adaha halkaan ka shaqeyn jiray in ay fankii dib u soo laabtaan oo dib u adeega caafimaadka hooyadii dhalaanka halkaan laga bixin jiray uu ka baxo intaan joognana qiimeena ku sameynay wixii ka dhiman oo qalab caafimaad ah ama wixii kaleeto in ayadana lagu soo kordhiyo dadka deegaankana waa u mahad celinaa si ay u ilaalsadeen intii ay ka xirnayd haddana waxaan rajaynaa insha Allah taala adeegyada caafimaadka oo laga bixin jiray in laga helo. dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug Cascasay ayaa dhagax dhigay suuqa xoolaha Afbarwaaqo isagoo la kulmay xoolo dhaqatada deegaanadaasi. halkan waa magaalo xoolo leh waa magaalo ku dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha sida daraadeed waxaan aad iyo aad aan ugu baaqaynaa uguna bogaadinaynaa anagoo dabagaleynaa hay'adaha ka kaalmeeya dhisida suuqyada iyo maxaajirta Galmudug iyo daweyntoodaba inay dayactirka suuqa xoolaha degmada Afbarwaaqo oo aan saaka dayactirkiisa dhagax dhignay inay gacan weyn ka geystaan. Liban Cajiib Xaaji TV Universal Galkayo.